Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaa inoo wada filim romantic jacayl ah kaasoo lagu magacaabo Rich in Love. intaana filimkeena u gudagelin waxaa kaa codsanaya inaad subscribe noo saartid, like-tana nagu dhiirigelisid si uu u gaaro saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale. filimkan waxa uu ku bilaabanayaa nin tusaya dad yaanyo uu soo saaray, waxa uuna u sheegayaa in ay wanaagsan tahay. waxa uu tusayaa wax ku saabsan shirkadda wiilkiisa Teeto. waxa uu furayaa albaabka, waxa uuna helayaa Teeto oo naagweyn jacayl la sameynaya. filimkan waxa uu isjarayaa bil ka hor ay rakabtan guriga ugu timid Teeto. waxa uu soo kacayaa qolkiisa, waxaa xiga gabar lagu magacaabo Anna. Teeto waxa uu imaanayaa aabihiisa quraacanaya, isaga oo weydiinaya shaaqiyada oo la dhaho Rose inay u sheegtay heshiiska. dhanka kale gabar joogta Rio de Janeiro oo la dhaho Paula waxa ay hurdada ka kicinaysaa saaxiibadeed Rusia iyo Kate, sababtoo ah waxay u socdaan hospitaalka, waxa ayna leeyihiin baraktiis. Dr. Victor Paul waxa uu ku casuumay qolka saalada qalliinka, iyaduna waxa ay doonaysaa in ay hesho boos joogto ah oo isbitaalka. waxa ay aqbashay qolka qalliinka. Victor waxa uu u sheegay sababta uu casuumay oo ah in ay tahay qof u muhiim ah asaga. waxay tiri raalli noqo, waa ayna isaga soo tagtay. keliya waxa ay doonaysa in ay hesho waqti badan shaqada hospitaalka haddii ay mudan tahay oo keliya. Teeto waxa uu la kulmay Igor oo ah wiilka Rose, waxayna ahaayeen keligood. Teeto waxa uu soo qaadan doonaa hadiyada dhalashadiisa, waxa ayna qaateen baabuur iyaga oo aan haysan wax laysin ah. booliiska ayaa joojiyay. naagta booliiska ah waxay iska dhigaysaa qof ku adkaynaya Teeto, balse arrintu sidaa waa ay ka duwan tahay. waxa ayna u sheegaysaa in uu ku casuumo xafladda dhalashadiisa. Teeto waxa uu la kulmayaa aabihiis warshadda, waxa uuna weydiinayaa inuu hadiyad ugu keenay gaari dhalashadiisa. aabihiis waxa uu keenay fikir kale, waxa uuna u sheegay inuu siinayo ganacsi qoyska ah. waxa u timid mid ka mida shaqaalaha taasoo la dhaho Monica, waxa ay tusinaysaa meelaha, laakiin Teeto waxa uu u sheegayaa in uusan awoodin waqti xaadirkan waxba. waxa uu diyaarinayaa xafladda dhalashadiisa taas oo u dabaaldegi doono iyo xafladda yaanyada. habeenkii xiga xafladda dad badan ayaa kasoo qaybgalay, waxaana ka soconaya heesa iyo qoobka ciyaaro. Teeto waxa uu la kulmay Igor, waxa uuna u sheegay in uu ku casuumay Selma. Igor shil ayay ku noqotay, diyaarna uma uusan ahayn inuu aado ayada, laakiin Teeto ayaa u jiidaya agteeda. waxa ay aadeen dhankeeda, laakiin Selma waxa ay ka heshaaba Teeto, waxa ayna shumisay asaga. Igor waa uu waashay Teeto, waxa uuna u sheegay in ay khalad tahay, balse Teeto waxa uu sheegay inuusan ku khaldanayn sababtoo ah Selma ayadaa ka hesha. Igor waxa uu sheegayaa inay cid walba ka helayso lacagtiisa ayna ku raacayso, waxa uuna u sheegayaa in ay tahay xaqdarro taas. Teeto ma uusan rumaysan, wuuna iska diiday. waxa uuna iska siibay jaakadiisa iyo siliskii magaciisa ku qornaa si uu ugu noolaado sida qof caadi ah. Paul iyo saaxiibadeed waxa ay joogaan xafladda, waxayna la dabaaldegayaan Kate xafladeeda qalinjabin. sidoo kale DJ-gu waxa uu soo xulay dadka ku dagaalamaya yaanyada. bululeer ayaa kor loo shiday, yaanyaduna waa meesha ayay daadsan tahay. Teeto waxa uu tuuray tamaandhada ama yaanyada Paul, laakiin kama aysan helin, xitaa waa ay la dagaashay. markii ay dib ugu soo noqotay saaxiibadeed, 3 nin oo aan kala sooc lahayn ayaa isku dhuftay iyada. Teeto ayaa soo ordayay inuu difaaco. Teeto sanka ayay ku dhufteen, waana ay carareen. Paul waxa ay isku dayaysaa inay Teeto sanka ka daaweyso, halka Rusia iyo Kate isaga tageen keligood. Teeto waxa uu qarinayaa runtiisa dhabta ah, waxa uuna u sheegayaa inuu goobta u joogo, inuu aabihii ka shaqeeyo kana yahay ilaaliye. waxa uuna weydiinayaa inay ka hesho fuulidda faraska, balse weligeed Paul maba aysan fuulin faras. waxa uu weydiinayaa inay hadda rabto, balse waa ay ka diidaysaa. waxa uu isku dayayaa inuu shumiyo, balse dib ayay uga baxaysaa, waana ay ka tegaysaa. waxa uu doonayaa inuu la kulmo berri, laakiin waa haddii ay dib ugu soo noqoto Rio de Janeiro. subaxii xigay Teeto aabihii waxa uu soo iibinayaa gaari qaali ah, waxa uuna u sheegayaa faa'iido kale oo dheeraad ah in booskiisa shaqada uu helayo. Teeto waxa uu sheegayaa inuu rabo shaqada, balse uu doonayo inuu kasbado inta uu u qalmo. qoyskiisu Rio de Janeiro waxa ay u joogaan program tababar oo shirkadooda ah. Teeto waxa uu u sheegayaa Igor sidoo kale inuu doonayo, waxa uuna u sheegayaa programka oo dhan oo qoysku meesha u joogo, waxa uuna ka dalbanayaa in uu aqoonsigiisa u bedelo, sidoo kalena uu u dagaalamo shaqadiisa. waxa kale uu sheegayaa in
uusan rabin inuu mar dambe isticmaalo magaca qoyskooda. Kama uusan baqin faa'iidada waqtigaas sababtoo ah waxa uu ku guuleysanayay gaari cusub oo qaali ah. Waxa ay tageen Rio de Janeiro habeenkii koowaad. Teto waxa uu aaday arooska Kate waxa uuna iska dhigayaa kuwa nadaafada ku dadaalaya in uu la kulmo Paul, taasoo sidoo kale shukaansanaya Victor. Teto iyo Paul waxaa dhacaya in ay wada hadlaan balse Victor waxa uu isku dayayaa inuu kaxaysto Paul laakiin ayadu ma aysan rabin Victor xaggiisa. Paul waxa ay shumisay Teto halkaas oo Victor uu iskaga tagay niyadjabka. Teto iyo Paul waxa ay ku lugeynayaan xeebta. Teto waxa uu been badan ka sheegayaa korintiisa iyo qoyskiisa in uu yahay sabool. Waxa kale uu yiri in aabihii shaqo u diri jiray. Waxa uu isku dayay inuu shumiyo Paul balse waxay u sheegtay inay ka tagayso. Maalintii xigta Teto iyo Igor waxaa lagu casuumay Transaco oo ah goobtii lagu qaadanayay program. Sidoo kale waxay la kulmeen Monica oo aad ayay u cabsadeen. Waxa ayna la kulmeen Celio oo ah madaxa qaybta suuqgeynta, Alana oo u xil saaran tababarka barnaamijka. Tetada dhabta ahi waxa uu isku dayay in uu aragti fiican marka hore ka samaysto Alan laakiin ma uusan ku guuleysan. Alan waa ay soo tagtay. Teto waxa uu shubanayay kofi halka Celisa uu u sheegayo in Alan ay waardiyeyso Teto. Igor waxa uu ku ciyaarayaa game. Alan waxa ay daryeelaysaa Tetaha been abuurka ah. Dhanka kale Tetaha dhabta ah waxa uu ka walwalsan yahay in uu dib ugu dhaco lumiyana booskiisa. Waxa uu wacayaa Monica waxa uuna weydiisanayaa in ay la kulanto. Teto waxa uu soo qaadanayaa gaarigiisa qaaliga ah xaafadda faqiiriinta ee Monica waa ayna kulmayaan. Waxa ayna aadayaan guriga Monica. Waxa ku nool walaasheed oo xanuunsan haysata cunug yar. Teto waxa uu weydiisanayaa inuu rabo inuu barto sida loo bilaabo shaqooyinka hoose sida uu ugu guuleysto booskiisa. Dhanka kale Teto waxa uu weydiistay Paula in ay caawiso walaasha Monica saartana raajo laakiin ayadu ma ahan dhaqtar mana ay awoodo warqadda kiniiniyada balse waxa ay awoodaa in ay u qabato ballan hospitaalka walaasha Monica. Teto waxa uu yiri haddii aad caawiso waxaad ku guuleysan doontaa gaarigayga. Teto iyo Paul banaanka ayay u baxeen. Waxa ayna diyaariyeen waqti ay kulmaan. Monica waxa ay caawinaysaa Teto waxa ayna siinaysaa talooyin si uu horay ugu bilaabo una kasbado nafsadeeda. Waxa uu dhageystay markii hore waanadeeda laakiin kadib ayaa lagu celiyay faylkiisii. Monica isma dhibin. Waxa ay wadatay dadaalkeedii. Teto waxa uu weydiistay Celisa haddii uu u heli karo shaqo guri taas oo la dhacay Celisa. Teto mar kale waxa uu weydiistay in uu ka caawiyo ballanta Paul mana garanayo meel uu geeyo. Waxa uu u sheegay in uu yahay faqiir. Waxa uuna dejiyay qorshaha ballanta. Waxayna Monica bartay qoobka ciyaar. Waxayna aadeen shukaansi. Waxa ayna ka wada hadlayeen arrinta waalidkiisa. Aakhirkii waa ay isdhunkadeen. Paul waxa ay soo jeedisay in ay aadaan guriga Teto taasi ahaan waxa ay ku tahay dhibaato Teto qoraal ayuu u diray Igor waxa uuna u sheegay in uu caawiyo asaguna isla markii si fudud ayuu qorshihii ugu caawiyay. Ninka soo dhaweynta joogay waxa uu siiyay lacag waxa uuna ka qaaday qol. Teto iyo Paul waxa ay yimaadeen hoteelka. Teto waxa uu u sheegay in ay joogto halkan sababtoo ah adeerkiis ayaa ka shaqeeya hoteelka. Teto waxa uu soo qaatay furaha. Odayga soo dhaweynta joogay waxa uu ogaanayaa in uu seexanayo qolka Lorios. Paul waxa ay tiri ma xuma qolkaani halka Teto uu ku fikirayo in uu aad u xun yahay. Teto iyo Paul waxay ogaadeen inuu banaanku fiican yahay waxayna balakoonka ula soo baxeen fadhiga. Teto waxa uu comment ka bixinayaa dareenka khibradda qoys la'aanta uu u leeyahay. Habeenkii Teto iyo Paul halkaas waxa ay ku qaateen waqti aad u qurux badan. Subaxii xigay waxa uu aaday tababarka programka. Markii uu arkay ilo biyo ka socdaan waxa ku soo dhacay fikir. Waxa uuna sawiray ilihii waxa uuna u sharxay in saan loo sameeyo yaanyada ilo ay ka soo daataan. Waa uuna ka helay Celisa laakiin Alan waxa ay ka doorbidaysaa fikradda Igor taasoo ah hab uu ku sii nagaanayo yaanyadu. Labada fikir waa la wada qaatay balse waxaa loo sheegay in ay wada shaqayn doonaan. Isla habeenkaas Paul waxa ay soo booqatay Transaco oo weydiisay in ay Teto ku sugi karto hoolka dhexdiisa. Alan waxay dhageysanaysaa ayada. Waxa ayna wataan socodkooda keligood. Waxayna u sheegaysaa inuusan ahayn xiriirkooda mid dhaba keliya uu yahay mid iska kaftana. Teto iyo Igor
waxa ay arkeen labada dumar wayna isqariyeen. Alan waa ay timid waa ayna u sheegtay teetihii been abuurka ahaa, laakiin asagu ma uu rabo inuu Paul u isticmaalo. Alan waxa ay ku caawisay inuu ka baxo meesha laga baxo. Paul waxa ay la kulmaysaa teetaha dhabta ah, waa uu ka niyad jabay balse waxa uu sheegayaa in ay neceb tahay Alan, waxa uuna doonaysaa in ay booskiisa ku beddesho, waana sababta ay beenta iiga sheegtay. Iyaduna way aaminaysaa. Dhanka kale Alan waxa ay u sheegaysaa inay iyadu mas'uul ka tahay amnigiisa ayna u qaadayso casho. Waxa uuna yiri waxa u laabanayaa qolkayga waxaana ku karinayaa casho. Waxa uu u kariyay xoogaa baasta ah waxayna ku cuntay si dhaqso ah, kadibna waa ay shumisay waxaana meesha ka dhacay ficil. Isla waqtigaas Teeto iyo Paul iyaguna dhankooda waxa ay wateen hawshaas oo kale. Bartamaha habeenkii Monica waxa ay soo wacday Teeto waxa ayna u sheegtay walaasheed in ay haysato xaalad caafimaad darro. Teeto iyo Paul waxa ay yimaadeen guriga Monica waxa ayna diyaarsatay irbad insulin ah. Monica waxa ay caawinaysay Paul halka Teeto uu cunuga yarka la joogay cuntana siinayay. Teeto waxa uu ku soo laabtay hoteelka waxa uuna ogaaday in ay Igor la seexatay Alan. Waxa uu yiri taasi waa khiyaano. Alan waxa ay la kulantay soo dhaweeyaha hoteelka wayna la quraacatay iyada oo u malaynaysa in uu yahay Teeto aabihiis. Ugu dambeyntii xaaladda waa la xaliyay, sirta Teetona weli cidima ogaan. Alan waxa ay mashruuca siinaysaa Igor halka Paul iyo gabdhuhu ay diyaarinayaan xafladda qalin jabinta. Teeto aabihiis waxa uu ugu yimid Rio de Janeiro waxa uuna doonayaa in uu wiilkiisa ku casuumo casho. Sidoo kale waxay isla soo raaceen baabuurka waxa uuna leeyahay in uu helayo shaqo. Alan waxay u sheegaysaa in ay og tahay cashada aabihiis isaga iyo aabihiisna ay isku xiri doonto. Teeto waxa uu keenay qorshe waxa uuna casuumay odaygii soo dhaweeyaha ka ahaa hoteelka iyo xoogaa dad oo shaqo la'aan ah. Alan iyo Igorna halkaas ayay joogeen. Teetaha dhabtaahina waxa uu la joogay aabihiis. Teeto waxa uu ka cudur daartay cashada nafsad ahaantiisa waxa uuna u soo baxay banaanka waxa uuna arkay Paul oo xaflad qalin jabin ah ku dhigaysa goob. Dhanka kale Teeto waxa ku dhacay baaskiil. Paul waxa ay siinaysaa kiniini xanuun baabiye ah in uu liqo. Teeto waxa kale ay u diyaarisay cabitaan kiniini hurdo ah ay ku jirto. Victor sidoo kale waxa uu burburiyay xafladda waxa ayna u maleynaysay in aanay sidii la rabay wax u socon. Anna ayaa ku soo biiraya xafladda waana Kate ina adeerkeed. Waxa ayna taqaanaa Teeto waxayna u sheegaysaa xaqiiqada. Inta lagu guda jiray qorshaha waxa isdagaalaya Teeto iyo Igor. Aabihiis ayaa ku tilmaamaya inay u dhaqmayaan si aysan u dhaqmin ciyaalku. Teeto waxa uu la kulmay Paul iyaduna waa ay ka dharagsan tahay beentiisa. Teeto waana ay uga dhamaatay. Paul Victor ayay u sheegaysaa in aysan u baahnayn shaqada hoteelka sababtoo ah adeegsiga awoodiisa. Waxa uu u soo cararayaa Monica waxa uuna weydiisanayaa in uu gurigeeda joogo. Sidoo kale waxa uu doonayaa inuu raaligeliyo Paul. Teeto waxa uu baska ugu imaanayaa Paul waxa ayna u sheegaysaa in uusan wax mustaqbal ah oo salahayn gabi ahaantiis. Waxayna u sheegaysaa inay u socoto magaalo kale ayna ka shaqaynayso shaqo bilaash ah oo volunteer ah. Xaflad ka dhacaysa Transaco waxaa la soo xulay cidda shaqada ku guuleysanaysa magacyadooda waxaana la yiri Teeto waa ay istaageen labadoodu mana ahayn xilligii la isqarin lahaa oo waxa ay ahayd xilligii la iska shifi lahaa. Dhanka kale Teeto, Igor, Monica iyo Alan waxa ay isku haystaan gaariga laakiin Teeto waxa uu sheegayaa in gaariga la iibinayo lacagtana ay wada qaybsanayaan si wadajir ah. Sanad kadib Teeto, Igor iyo Monica waxay halkan ugu dabaaldegayaan ganacsigooda guusha uu gaaray. Albaabka waxaa soo garaacaya Paul. Xafladuna saas ayay ku dhamaystirmaysaa. Filimkeenuna waxa uu ku dhamaanayaa Teeto iyo Paul oo is shuminaya.